doorashooyinka Puntland ayaa ku dhawaaqay degmooyin dhowr ah oo si hordhac ah ay ugu qabanayaan doorashadaas. doorashooyinkan ayaa ah kuwii ugu horreeyey oo noocooda ah oo deegaanada Puntland laga qabanayo tan iyo markii maamulkaasi la dhisay 22 sano ka hor. haddaba faahfaahinta warkaas waxaan ka waraystay afhayeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo marka hore aan weydiiyey kuwa ay yihiin degmooyinkaas ay doorashooyinku ka dhacayaan. degmooyinka guddiga doorashooyinka Puntland waxay kala yihiin Qardho iyo Eyl iyo Ufayn. waa tahay goormaad doonaysaan marka in aad qabataan doorashooyinkaas oo ay dhacaan? 13 bisha guddiga doorashooyinka wuxuu ansixiyey 3 degmo iyo tuulooyinkooda hoostaga meelaha ay noqonayaan goobihii dadku ay iska diiwaan gelinayeen. ilaan qofku inuu isdiiwaan geliyo waa inuu kaarkiisa qaataa iyo goobihii qofku marka uu cod ka dhibanaya seejooyinkii goobihii diiwaan gelinta iyo goobihii cod bixinta. intaas la isku afgartay guddigu waa ansixiyey waa la baahiyey 3 degmo inta tuulooyin ay noqonayaan iyo inta maartay goobaha dadka loogu tagay xataa meelaha dadku ku yar yahay oo guddigu uu soo sahmiyo oo soo arkay markii uu asteynayay goobahaasi la codeynayo meelaha la isiri dadku ku yar yahay xataa waxa loo sameeyaa kooxo mobile ah oo guurguura oo hadba dadku meesha ay joogaan ugu tagaya. marka haddii ilaahay idmo shuruucdii iyo xeerarkii iyo wixii dhan waa degsan yihiin goobihii seejooyinkiina waa la wada asteeyey waana la shaaciyey bidnillaahi waxaanu ku dadaalaynaa bartamaha sanadkan waliba bisha June in ay 3 degmo doorasho qof iyo codihii ay ka qabsantaan. doorashooyinka deegaanadaas ama degmooyinkaasi ka dhacaya waa kuwo ku kooban golaha deegaanka oo kaliya Soomaa? waa golaha deegaanka oo kaliya dadku meeyiradoodii iyo golihii deegaanka dawladii hoose bay dooranayaan. waayahay dadka noqonaysa tijaabadii ugu horeysay oo dadku horta tuuladeeda iyo degmadeeda iyo gobolkeedii waxa uu baahan yahay dadkii uga shaqayn lahaayeen dadku ay ku aamini lahaayeen inay adeegooda ay u sameeyaan adeegyada ay u baahan yihiin. waa tahay marka dadka wacyigelin ma u samayseen oo arrintan ma ku baraarujiseen in ay ka qayb qaataan doorashooyinkan? aad iyo aad barnaamij xoog leh oo warbaahintu nooc kasta oo ay tahay iyo shirar iyo dhinac kasta ah ilaa iyo January sanadkii la soo dhaafay baanu wadnay gobolada dhan baanu tagnay dadkii ehelka u ahaa hawshan waanu la tashanay qaybihii bulshada dhinacyadii mas'uuliyiintii dawladda Puntland arrintaasi qaabilsanayd dadkii gobolada iyo degmooyinka ku noolaa mas'uuliyiintoodii cuqaashii haweenkii dhallinyaradii qaybihii bulshada oo dhan kulli waa la soo wada tashanay. laakiin midna waxa weeye warbixin guud oo ah doorasho la qabanaya midna waxa weeye mid dadkii deegaanku ay u baahan yihiin dadkii codeynayay see u codeynaya yaan codkayga siinaya yaan siin karaa xaggee ka codeynaya iyo meeshaasaan joogaa meeshaan ma ka codeyn karaa waxyaabahaas macluumaadkaas oo dhan haddii ay barnaale ka noqdo bishaan aynu ku jirno dhammaadkeedu bilaabanaya wacyigelintaasi waxay soconaysaa ilaa iyo inta qofka ugu dambeeya uu codkiisa dhiibto ayaanu wadaynaa warbaahinta noocyada kala duwan iyo meel walba. ugu dambeyntii idinka ka guddi ahaan ma idin dhammaystiran yahay qalab kasta oo ay ahayd in doorasho lagu qabto? 3 degmo qalabka aan ugu talagalnay waxa weeye goobihii codbixinta qalabkii la dhigi lahaa kombiyuutarradii waxaan serverka la yidhaahdo oo lagu kaydiyo maaragtay xogta goobaha laga codeynayo dadka isdiiwaan gelinaya iyo dadka codkooda hadhow dhiibanaya iyo qofkani qalabkaasi waa qalab casriya teknolojiyada casriga oo hadda adduunka ka socoto la jira wuxuu sahlayaa qofkan adigu haddaad rabto inaad degme aad ka codayso degme baad iska diiwaan gelinaysaa hadhow degme B kama codeyn karaysid marka kaarkaaga lagu siinayaa markaad isdiiwaan geliso kaarkaasi hadhow magacaaga kombiyuutarka lagu fiirinaya markaad goobta tagto meel kale haddaa iska diiwaan geliso halkaasa wejigaagii iyo farahaagiiba ka soo baxaya qalabka caynkaasa oo min bilow ilaa iyo dhammaad aan ugu talagalnay in 3 degmo aan ku hubinno ku xaqiijino doorasho xor oo xalaal inay ka dhacdo. waxaa kaloo jira guddiya waxaa jira kale oo iyaguna cabasho hadday timaado ilaan doorasha la gelaya cabasha imaanaysa waa naloo ka shubtay dadkaana xaq u lahayo waa loo diiday inay codeeyaan waxaasoo dhan wixii ka bata guddiga doorashooyinka inuu xallin waayo guddi kale oo xallinta khilaafaadka la yidhaahdo oo dadka miisaanka ku leh qaybaha bulshada ka mid a ka kooban baa loo diraya oo iyaguna halkaas u raadinaya qofkaasi loo qanciyo muwaadinkaas haddii uu khaldan yahana loo tuso khaladkiisa hadduu saxan yahana wax looga qabto cabashadiisa. afhayeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayuu kaasi ahaa oo markii horreysay ii warramayay halkaad nagala socotaan